xafladan ayaa midii ugu weyneed jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ee badqabtaan isla markaana ay isugu yimaadeen tiro dadweyne oo ku dhaafay ilaa qofood isugu jira culimada diin ganacsatada aqoon-yahano haweenka iyo dhalinyarada waxaana xafladan lagu taageeriyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya mudane Professor Xasan Sheekh Maxamuud oo 10 bishan cadaalada loogu doortay magaalada Muqdisho caasimadda wadanka kasoo qaybgalayaasha xafladani ayaa wajiyadooda laga dheehanayay inay ka muuqato wadaninimo iyo hilow ay wadankoodii hooyo qabaan halka xafladani ay uga dhignayd inay soo bandhigaan isla markaana la qaybsadaan farxadooda ummadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibadiisa inkastoo meelo kala duwan lagu qabtay xafladda taageerista madaxweynaha iyo jaaliyada reer Johannesburg ay xalay ku soo bandhigeen mid dhammaantood ummadda oo dhan ay u dhamaayeen ilaa mid yar iyo mid weyn safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya wadankani Koonfur Afrika mudane Sayid Xasan Shariif ayaa kamid ahaa martidii ka soo qayb gashay xafladani waxaanu hambalyo u soo jeediyay madaxweynaha cusub xaqiiqada barlamaan xalaal ah ayaa dhalay madaxweyne dhab ah oo ku meel gaarka looga bixi karo oo ummadiisii aan dareensanahay in uu ka bixinayo dhibaatada waxaana madaxweynaha ka rajaynaynaa ra'iisul wasaare u dhigma tiimkan soo baxay oo doonaya isbeddelka inuu sameeyo si dawlad aanan ku meel gaar ahayn ayadana ka bixisa dhibkan Soomaaliya oo ra'iisul wasaarahaasi u keeno madaxweynahana waxaan ugu baaqaynaa anigoo ku hadlayo magaciisa kuna hadlayo magaciina in uu asagana Ilaahay uu waafajiyo ra'iisul wasaarihii munaasabka ahaa أحمد داير حرو وحو كاميدا هذا يردي سكود سكو أبابوشي كانت دبيسين هرقليان حفلة دنياتك وقروح لبضان وحانا وهم بليه مدحوين بروفيسور حسن شيخ محمود إنا نوهم بليينو مدحوينها جمهورية فدرالكا صوماليا مستر حسن شيخ وما تنتهين وحكى للربا inaan isku cadeyno inaan nahay dad jira oo jaaliyada oo wadanka Koonfur Afrika degan oo leh dhalinyaro ganacsato odayaal culumo haween iyo caruur oo bays muuqda ku leh wadanka Koonfur Afrika khaasatan magaalada aynu joogno ah Johannesburg waxaan u mahadcelinaynaa dawladii ka horeysay dawladda hadda la soo magacaabo loo doortay madaxweyne Xasan Sheekh sababtoo ah waa dawladii inoo soo dirtay ee la sameysay xiriirka saaxiibtinimo dawladda Koonfur Afrika inoona soo magacaawday safiirkeena Sayid Xasan Shariif Abdallah dhanka orodayasha Johannesburg ayaa waxay laf dhafartay jaaliyada Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ilaa iyaga ayaa kuwa dhaxgala hadii wax dhibaato ay ku timaado waxaana sidoo kale dhalinyarada ay ka doonayeen inay raacaan talaabtooda maxamed cabdi diiri qooqaani oo mahmaaye aad u sareeya hadalkiisa ay ka mid ahaayeen ayaa aad ugu faraxsanay inuu arko jaaliyada reer Johannesburg oo dhan hal xaflad isugu timaada oo ay ka baxeen xafladihii gooni-gooniga ay u kala qabsan jireen xaaji cabdi waliye oo ku hadlaya magaca odayaasha Johannesburg ayaa isaguna hambalyo u soo jeediyay madaxweynaha qaranka inta marka laga gudbo xafladda macnaheedu wuxuu yahay macno badan ay xambaarsantahay kow waa taageerada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa iftiinka nabadda taageerada iftiinka nabadda ee ka soo muuqda Soomaaliya waa doorashada dadka aqoon-yahanada ee Soomaaliya filayna inay gacanta ku dhigaan hadduu yahay madaxweynaha hadduu yahay gudoomiyaha baarlamaanka hadduu yahay aqoon-yahanada baarlamaanka ku jira oo soo galay 20 sanadood ayay hadlayeen aqoon-yahanadu oo ay lahaayeen war dalkana waanu dad lahayn war wax raamiyaan la arag war dadka ma sida laga daayo waxaad moodaa hadalkoodii riyadooda inay maanta soo baxday aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee wadankani Koonfur Afrika ayaa iyaguna hadalkoodii halkaas ka soo jeediyay waana kan Professor Cabdiqaadir Cilmi Calas oo ka hadlaya taariikhda madaxweynaha iyo xisbiga PDP oo haatan sida ku meel gaarka uu madax uga yahay wadankani Koonfur Afrika waxbarashada waxa uu ku mahadsan yahay sida wanaagsan oo hufan oo marna Soomaaliya uga bixin dad badan oo anigu aan ka mid ahay inaan ka cararnay wadankii
oo aan ku soo laaban weynay laakiin asagu wuxuu aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu mahadsan yahay inuu kaalintii aan ka cararnay buuxiyey waxaa kale oo aad iyo aad iyo aad uu mataqaana u arkay markii waxbarasho dheeraad ah cilmi baaris badan uu sameeyey inuu asaaso xisbi lagu magacaabo BDB xisbigaas waxaa laga mid ah uu ka sameeyey magaalada Muqdisho sanad ka hor yaasha dhalinyarada aqoon-yahanada ay taageeristooda soo bandhigeen ayaa dhanka ganacsatada waxaa ku hadlaya ganacsada Muuse Ganjab gaar waqti ugu dambayso waxaan jeclaan lahaa laba kalmo inaan ka geysto maadaama aan ahay qof ka mid ah community-ga ku nool South Africa waxaan markii ugu horeeyay u hambalaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud guusha uu gaaray waan ugu hambaleynayaa talabaad waxaan u hambaleynayaa baarlamaanka guusha uu gaaray iyo transparency-ga uu gaaray iyo wuxuu qabtay waan ugu hambaleynayaa South Africa dhibaato badan baan soo marnay waqti dheer baan soo halganay duruufo badan baan soo marnay maanta ilaahay wuxuu qadiray safaaradii maalintay timid iyo TFG-ga maalintaan ka baxnay ilaahayna isku aadiyey marka wixii hadda ka dambeeyo waxaanoo laga baahan yahay waddanka sidaan u dhisi lahayn waddanka sidaan u maalgelin lahayn waddanka sidaan cadaalad ugu abuuri lahayn haddaad dagaalamaysaa dalkii dowladda u yeeshay dagaalkii ugu dhammaaday ma la socotaan madaxweyne kala doorta madaxweyne waa nin lamala gaarin ba waqtigii suumo la bedelaya lamala gaarin waxaan ka hadlayaa waa Soomaaliya South Africa ma Soomaaliya wad sheekada xagga madaxweyne ayaa la doortay dalka hogaaminayo daacada weliba barfaysa dadku ay jecel yihiin su'aal ku weydiiyo haye meeqa suuq buu leeyahay iyo taransate ya islaam adduunkii horuu maray madaxweynaha haddii suuq lagu dooran jiray ka qarin iyo warqad baa lagu doortay waa nin barfaysan aqoon buu leeyahay haddaba shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ku nool yihiin ayaa ka dhul sugi doona waxqabadka madaxweyne Professor Xasan Sheekh Maxamuud Suud Xuseen Maxamuud Universal TV Johannesburg